Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu dhiganaynaa casharkeenii taxanaha ahaa ee Computer Science-ka. Waxay noogu joogtay ahayd su'aashan laba su'aalood baa ahayn mid waan ka shaqeynay casharkii hore. Su'aashan labaad ayaan ka shaqeynaynaa u fiirso. Su'aasha labaad waxaa la i siiyay ahayd waa eber hal eber hal eber hal hal eber baa la dhahay. Markaan ka shaqeynayo waxaan dhahayaa marka ugu horeysa to the power of zero baan dhahayaa. To the power of 1 baan dhahayaa. To the power of 2, to the power of 3, to the power of 4, to the power of 5, to the power of 6, to the power of 7 baan dhahayaa. Markaan to the power of 7 aan dhaho aan qorto ayaa waxaan sameynayaa waxaan qaadanayaa sidii casharkii hore baan kusoo dhiganay hal hal shan baan qaadanaa eberka waan iska deynaynaa hal halka baan qaadanaa. Markaan waxaan dhahayaa to the power of 6 plus to the power of 4 plus to the power of 2 plus to the power of 1 intaa ayaan qaadanayaa. Markaan intaa qaato waxaan dhahayaa markaan intaa qaato waxaan dhahayaa waan jibaarayaa. Markaan jibaaro qaabkii caadiga ahayd buu soo bixi. Waxaan dhahayaa to the power of 6 waa 64 plus to the power of 4 waa 16 plus 4 plus 2 baan dhahayaa. Markaan intaa dhaho ayaa waxaan sameynayaa waan isku geynaya. Waxaan dhahayaa 64 u gee 16 waa 80 bay noqoni. Markay 80 noqoto 2 u gee 4 waa 6. Markaa 80 u gee 6 maxaan helay? Waxaan helay waa 68 baan helay. Su'aashii koowaad 68 bay ii soo baxday. Waad fahantaan u maleynayaa. Halkan waa Real Maths Private School. Insha Allah waxaad ka dhigan doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad fudud. Su'aasha labaad baan galayaa. Su'aasha labaadna waxaa la i siiyay waa hal hal eber eber dhibic baa la yidhi hal 0 1 baa la yidhi. Markaan fraction baa gashay. Markay fraction gashana qaabkaan uga shaqeynayno u fiirso waa qaab aad u fudud. Waxaan dhahayaa markaa sidii caadiga ahayd marka ugu horeysa waxaan dhahayaa halkanaan siinayaa positive kaan siinayaa. Waxaan dhahayaa waa to the power of 0, to the power of 1, to the power of 2, to the power of 3 baan dhahayaa. Markaan intaas siiyo yaan haddana waxaan dhahayaa xaggan kalaan soo noqonayaa. Waa to the power of -1, to the power of -2, to the power of -3. Halkanna dhankanaa loo tirinayaa. Waad fahantaan u maleynayaa. Intaas waxaan dhahayaa intaas kabacdi markaan intaa dhaho ayaa waxaan qaadanayaa 1 cube baan qaadanayaa eberka waan iska kabacdi waxaan haystaa waa to the power of 3 plus to the power of 2 plus to the power of -1 plus to the power of 3 baan haystaa. Markaan intaa haysto waxaan dhahayaa to the power of 3 waxay ila mid tahay markaa 8 baan dhahayaa. 8 bay ila mid tahay ka kalena 4 bay ila bixi. Waa 8 plus 4 plus 1/2 plus 1/8 baan dhahayaa. Markaan sidaa dhaho ayaa waxaan isticmaalayaa waan isku geynayaa. Waa 12 hal u qaybi 2 waa eber dhibic kan kalena hal u qaybi 8 waa eber dhibic hal 2 5 baan dhahayaa. Kabacdi waan isku wada geynayaa. Waxaan helay 12.6 2 5 baan helay. Waad fahantaan u maleynayaa. Waa su'aashii labaad ee fractionka ahayd. Su'aasha saddexaad haddaan galo su'aasha saddexaadna waxaa la i siiyay waa hal eber eber hal hal baa la yidhi dhibic eber hal hal baa la dhahay. Markaan isticmaalaya kanna sidii baan isticmaalayaa. Marka hore waxaan soo isticmaalay maxayna qayb baan isticmaalay kan waxaan dhihi 0 to the power of 0 to the power of 1 to the power of 2 to the power of 3 to the power of 4 baan dhihi. Markaan sidaa dhaho intaa ayaan haddana halkan kalena waxaan dhihi 1 to the power of -1 to the power of -2 to the power of -3 baan dhahayaa. Markaan sidaa dhaho ayaan wixii 0 waan iska deynayaa. Wixii hal hala hashan baan qaadanayaa sidii aan iska deynay waayo eber ku dhufo waa isla eberkii wixii marka ku dhufato hashaasaan qaadanayaa. Markaa waxaan dhahayaa to the power of 4 plus to the power of 1 plus to the power of 0 plus to the power of -1 plus to the power of -3 baan dhahayaa. Markaan sidaa dhaho waxaan sameynayaa markaas waan jibaarayaa. Waa 16 loo geeyey 2 loo geeyey 1 loo geeyey 1 loos dhigay 4 loo geeyey 1 loos dhigay 8 baan dhahayaa. Markaan sidaa dhaho ayaa waxaan sameynayaa waan isku wada geynayaa. Markaa waxaan dhahayaa isku wada geey waa 19 waxaan dhahayaa intan u qaybi waa eber dhibic 2 5 baan dhahayaa. Inta kalena waa eber dhibic 1 2 5 baan dhahayaa. Markaa waan isku wada geynayaa. Maxay ii soo baxaysaa? Waxay ii soo bixi waa hal
19.375 bay ii soo baxday. Waad fahantaan u malaynaya waa su'aashii saddexaad. Casharkeenu wuu sii soconayaa. Halkan waxaad ka dhigan doontaa xisaab dhammaanteed qaab aad iyo aad u fudud. Waa anigoo Riyalo inile. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.